waxaan rabaa faroole dulmi badan uu sameeyay inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo faroole horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisaha meel ayaa la gaaray dastuurkan uu ku waashay oo haddana ilaahay ka qabtay maxay inuu gudoomiye u noqday ay ahayd aniga faroole waa la soo shaqeeyay markii dastuurkan ku meel gaarka laga shaqeynay ummadda Soomaaliyeed soo ninka u kadeeday iyo dastuurkan ciladaha uu leeyahay dhan inuu asugu sabab ka yahay anigana aan ka marxaati dastuur Soomaaliyeed la diyaarinay asna dastuur Puntland uu diyaarinay waxay noqotay inuu qof walba muddo qoorta ka saaro intii wadanku kala bixi lahaa oo dastuur la'aan lahaa in loo tanaasulki dhibaato badan oo hadda taagan ay ka mid tahay Puntland qof aan lahayn ma jirto aniga idla hadlaa qof iga Puntland garaysan ma jirto waa dalkayga waa dadkayga waa wadanka meelaha ugu jecel ka mid tahay laakiin hadaa dhageysatid ninka la yiraahdo Faroole wuxuu yiri aniga iyo Umar Cabdirashiid ayaa gaalkacay waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ummadda Soomaaliyeed aan la shan qaadan bal fiir wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxa heshiis si fiican u dhageysto wuxuu yiri aniga iyo Umar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo hada xamar ma ogow gaalkacyo ku kala seexanay in 25 deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland waxa soo kama qaldan طبعا waxba ka qaldan Umar Cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyo horta lama yaqaan kulli xamar ma keen kulli wasaaradda waxbarashada ma arkin waa wax niman reer Puntland isla ee xagga isku sheegeen kulli aan asaas u fasirtay maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado Umar Cabdirashiid yiri 25 aad leedahay Faroole waa lagu xariifay markaas laakiin aqliyadaas nin ku shaqeynaa noocaas waa shaqeeya sayida tahay maxay Umar Cabdirashiid xamar uu keen lahaa dadku soo bandhigi lahaa doo waxaas oo kale uu sameeyay laakiin kulli oday qoorta mid uga haayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebay san qiyaasay wuxuu sheegay been badan oo ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina laf dhabar u ah waxbarashada Puntland oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib leeyahay sheegay inuu ka helay Alan Smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo ayuu yiri wasaaradda ka haysatay feer masabidaada iyo ummadda fidnada u dhaxdhigay walaga 80 jirka Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanis kabiisa la fiiriya hadduu rabo inuu Puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado oo noqdo si kale u dhaqmi lahaa reer Puntland waxa aad tahay u jeedaan hal qof oo kugu daysanaysa ma jirto ummadda beenta iyo fidnada iyo dulunka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumriga joogtaay ayaa fiican haddii waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland ay la jecel kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariyo gurigaaga ka muuqalahay guriga adiga aad leedahay ee reer Faroole ay ka muuqalahay wiilkaagu intuu soo istaago reer Hiiraan uma abaal sheegteen ma dhaheen fatahaadii waxbaan idin soo dirnay gooyad xaqabta waxa aad soo saartay soo abaabisay waa dadka noocaas marka haddii aad tacliinta Soomaaliyeed iyo abowga Soomaaliyeed rol model u noqon lahayd horta meeshaas ay kaaga halawday sheekadu waxaad joogtaa waqtigii aad fariisan lahayd meel inta aad joogtay oo aad Puntland madaxda u ahayd ummadda Soomaaliyeed kadeeday
markii reer Puntland iska kaa qabteen ma aadan fariisan ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas hal maalin gaama nasan hal maalin shaqo ka qabo waay haddana waxa afduub ku haysaa ka maanta joogo adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ha ka nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso